محمد محمود حي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدوميها كوميلغاركا أمباسدور دبنعت يقولها شعبك حلبان هذا شرفت بدن يقولها شعبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قدوميها كوميلغاركا أمباسدور دبنعت يقولها شعبك حلبان هذا شرفت له يقولها شعبك. قدقة دورشدة صحافة هولودينada ciidanka amniga iyo dhammaan marti sharafta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane gudoomiye iyo mudanayaal, golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa golaha matala dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida ku xusan qodobka 56 dastuurka ku-meelgaarka ah. golahani waa ubuucda iyo lafdhabarka dowladnimada iyo midnimada Soomaaliya. waa golo ka turjuma dimuqraadiyadda, jihaynta siyaasadda Soomaaliya. waxaan uga hambaliyeynayaa xildhibaanada ka mid noqday golaha ee matalaya ummadda Soomaaliyeed. golaha wuxuu u baahan yahay guddoon leh aragti midaysan, hufnaan, waayo aragnimo, aqoon, dulqaad iyo xasilooni siyaasadeed, kana shaqeeya danaha golaha iyo horumarinta xildhibaanada. sababaha aan u mudnahay in aan qabto xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacbiga. mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, anigoo in badan ka mid ahaa baarlamaanka 9aad, 10aad iyo 11aad, goobjoogna ka ahaa caqabadihii badnaa ee wajahayay xildhibaanada golaha shacbiga, khibradna u leh xalinta dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka qabsada xildhibaanada cusub iyo kuwa soo noqdayba, anigoo sameeyey cilmiga baarista bulshada, anigoo waayo arag iyo khibrad dheer u leh diblomaasiyadda, maamulka iyo hoggaanka dowladnimo, lana soo shaqeeyey hay-adaha dowladda. waxaan ka mid ahaa diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya 2000 ilaa 2014, taasoo aan ku soo biiray baarlamaanka 2014 markii Allah u naxariistay aabahay la dilay xildhibaan mudane maxamed maxamuud xayd, asoo gudanaya howlihiisa dastuuriga una soo socda shaqadiisa ay maalin Ramadaan ahayd. waxaan ka soo mid noqday guddiga difaaca golaha shacbiga baarlamaankii 9aad. waxaan ka mid noqday guddiga difaaca baarlamaankii 10aad 2 sano ugu horeeyay 17 ilaa 19. waxaa la ii doortay inaan ka mid noqdo guddiga dastuurka ee baarlamaanka 2019 ilaa 2022, xubin firfircoon oo ka mid ah guddiga baarlamaanka caalamiga ah, anigoo ka mid noqday guddiga baarlamaanka adduunka qaybtiisa fulinta. waxaan madax ka noqday guddiga saaxiibtinimada baarlamaanka Soomaaliya Qatar, Qatar Parliament Friendship, lana soo shaqeeyay hay-ado kala duwan oo caalami ah, anigoo aqoon durugsan u leh
arrimaha maamulka iyo horumarinta oo anigoo ka haysta shahaadada UPs ee jaamacadda UN-ka kulliyadda master degree-na ka qaateen peace governance and development af Soomaali markii loo bedelo noqonaysa nabadda maamulka iyo horumarinta anigoo aqoon fiican u leh dastuurka kumeel gaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya xeerarka Soomaaliya iyo xeerarka kale ee caalamiga anigoo xubin ka ahaa guddiga dastuurka dib u eegista dastuurka anigoo muddo dheer ku soo jiray arrimaha siyaasadda Soomaaliya kana soo qayb galay xal u helidda ismaandhaafka siyaasadeed ee dib u heshiisiinta Soomaaliya kana qayb mid ahaa guddigii shirkii carte ee noqday wadadii Soomaaliya ay dowladnimadeeda ku bilowday waxaan xiriir dhow la leeyahay baarlamaanada caalamiga oo aan xubin ka ahay muddo ka badan 6 sanadood hay'adda caalamiga ah ee ku howlan arrimaha Soomaaliya kuwaas oo aan taageero mug leh uga heli karno sidii aan u kobcin lahaa xiriirkooda iyo xiriirka baarlamaanka 11aad iyo waliba sida looga horumarin lahaa heerka ay goluhu joogo gaar ahaan xildhibaanada iyo howlwadeennada baarlamaanka anigoo la kaashanaya guddoonka golaha shacabka anigoo xog ogaal u ah xaaladaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya oo baarlamaanka 10aad uusan qaadan door laga rabay anigoo og khilaafka dhex maray golaha shacabka iyo aqalka sare kaasoo sababay in shaqadii baarlamaanku hakad galay taasoo caqabad ku noqotay dhamaystirka dastuurka iyo wada shaqaynta looga baahnaa labada aqal waxaan abuurayaa jawi ku salaysan kalsooni isfaham dastuurka kumeel gaarka la tashi aan la yeelan doono xildhibaanada iyo iyadoo la asaasayo guddiga adeega baarlamaanka oo muhiim u ah shaqada isku xirka iyo adkeynta hay'adda xildhibaanka anigoo aaminsan la tashi ku dhisan washaawirhum fil amr waxaan aaminsanahay in markasta ay muhiim tahay la tashiga dhammaan xildhibaanada guddoonka si loo helo gole la wada leeyahay anigoo ah shakhsi si guul leh uga soo baxay dhammaan shaqooyinkii aan soo qabtay iyo kuwa aan hadda hayaba ee ku aadan siyaasadda iyo arrimaha diblomaasiyadda weligayna aan laygu eedeyn ama laygu xaman musuqmaasuq qabyaalad iyo karti daro haddaba arrimahaas ayaa aaminsana in aan ahay qofka ugu habboon ee ka soo dhalaali kara xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka magac iyo sharaf weynna ugu soo hoyn kara golayaasha caalamka iyo shacabka haddaba anigoo ka duulaya dastuurka kumeel gaarka ah iyo xeer hoosaadka golaha shacabka oo si cad u sheegaya howlaha guddoonka golaha shacabka waxaan go'aansaday in aan u tartamo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya anigoo aqoon iyo khibrad badan u leh sidaa awgeed waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa barnaamijkayga waxqabad haddii eeba idmo mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh habka aan rabo in aan u gudto xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad anigoo ku shaqaynaya dastuurka kumeel gaarka ah dowladda federaalka Soomaaliya xeer hoosaadka golaha shacabka si dhowna ula shaqaynaya guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka waxaan muhiimad siinayaa arrimaha soo socda 1 ilaalinta dastuurka iyo sareynta sharciga waxa aan ilaalinayaa dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya waxay u baahan tahay sareynta iyo talinta
sharciga. waxaan si gaar ah idinkaga ballan qaadayaa inaan baarlamaanku ka shaqeeyo arrimaha si loo helo xeerar ka turjumaya danaha dadka iyo deegaanka Soomaaliya oo waafaqsan dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. mideynta golaha shacabka anigoo ka kaashanaya guddoonka golaha waxaan ka shaqaynayaa in xildhibaanada golaha ay shaqadooda u gutaan si dhammaystiran oo hufan oo la isku wada raacsan yahay ayadoo laga fogaanayo dhibaatooyinka khilaafaadka iyo kooxaysiga. 3 ilaalinta xasaanadda xildhibaanada waxaa laga maarmaan ah in la adkeeyo xasaanadda xildhibaanada anigoo ka shaqaynaya insha Allah in la dejiyo xeerka xasaanadda xildhibaanada kaasoo si buuxda u siinaya xasaanadda dhammaystiran dhammaan xildhibaanada si aysan u soo noqon tacadiga xasaanadda xildhibaanada si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah iyo xeer hoosaadka golaha shacbiga. 4 dhismaha guddiga adeega golaha baarlamaanka waxaan ka shaqaynaynaa in si degdeg ah loo dhiso guddiga adeega baarlamaanka anigoo la kaashanaya guddoonka golaha shacabka guddoonka aqalka sare iyo xildhibaanada labada aqal. guddigan oo muhiim u ah madax bannaanida baarlamaanka iyo daryeelka xildhibaanada iyo xuquuqdooda asaasiga. 5 isku xirka xildhibaanada iyo deegaan doorashadooda waxaan diyaarinaynaa xafiis u xildhibaanka kasta uga shaqayn karo deegaan doorashadiisa oo leh howlwadeenno iyo khubaro maadaama shaqada xildhibaanku ay tahay sida ku xusan qodobka 61 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka matalaad deegaan doorasho xeer dejiye la xisaabtan xukuumadda. waxaan sidoo kale ku darayaa miisaaniyadda dowladda miisaaniyad u gaar ah ee loogu talagalo horumarinta deegaan doorashada Constituency Development Fund CDF si loogu sahlo in xildhibaan kasta uu booqan karo deegaan doorashadiisa ayadoo uu warbixin u soo gudbinayo golaha shacbiga. la xisaabtanka xukuumadda. 6 waxaan xoojinayaa la xisaabtanka joogto ahaan xukuumadda ayadoo laga hortagayo isku milinka hay-adda sharci dejinta iyo fulinta. 7 dhamaystirka dib u eegista dastuurka howlaha waaweyn ee hor yaala baarlamaanka 11 waxaa kow ka ah dhamaystirka dib u eegista dastuurka oo la rabay in la dhameeyo baarlamaankii 9aad sidoo waafaqsan qodobada 132 haddaanan la helin dhamaystirka wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland oo aanan la guntin arrintaas dhamaystirka dastuurka wuxuu ahaan doonaa caqabad taagan. waxaan ka shaqaynayaa in baarlamaanka 11 uu ku guuleysto dhamaystirka dib u eegista dastuurka iyo wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland taasoo xog ogaal u ahay halka uu marayo iyo caqabadaha hortaagan. 8 isku xirka baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanada caalamka anigoo kaashanaya xiriirkayga aan la leeyahay baarlamaanada caalamka waxaan ka shaqaynayaa abuuraya saaxiibtinimo ah baarlamaanka iyo baarlamaanada adduunka si ay u heli karno horumarinta iyo kor u qaadida tayada xildhibaanada iyo howlwadeenada baarlamaanka. mudane marwey gunaanadkii mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh iyo marwooyinka waxaan si sharaf iyo xushmad leh
idinka codsanayaa inaad codkiina igu aamintaan oo aan idiin dhowro ammaanada aad ii dhiibataan oo ugu adeego danaha golaha xildhibaanada iyo danta guud ee qaranka. xildhibaanada sharafta leh, haddii aad igu aamintaan codkiina waxaan noqon doonaa mid idin nugul, idin dhegaysta, idinka warqaba waqti walba iyo meel walba. waxaan jeclahay inaan ku soo qatimo waa kuma xildhibaan Saciid Maxamed Maxamuud Xeyd. xildhibaan Saciid Maxamed Maxamuud Xeyd wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho 21 January 1970. waa mudane ka soo jeedo famil siyaasad iyo ciidanba ka soo jeeda. kusoo soo beeray baarlamaankan 2014 16 sano ugu dambeeyna ahaa xubin diblomaasi. waana mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u yeerayaa haddana